gudoomiyaha ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi waxa uu magacaabay gudida fulinta xisbiga kulmiye ee gobolka awdal gudoomiyuhu waxa uu yiri kadib markii aan arkay muhiimadda dhismaha gudida fulinta gobolka awdal uu u leeyahay hawlaha iyo habsami socodka abaabulka xisbiga waxa uu magacaabay cabdiqaadir daahir ojo in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga kulmiye axmed maxamed cilmi in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal maxamed sheekh muuse cumar in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xogayaha gobolka awdal ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan yuusuf cabdi in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka awdal ee xisbiga kulmiye sahre aw cilmi maxamuud in laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka awdal ee xisbiga deeqa faarax cadaawe in laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal safiya cabdi nuur in laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato afhayeenka garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal yuusuf nuur muuse in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa xidhiidhka komishanka iyo doorashooyinka ee gobolka awdal ee xisbiga cumar muuse qalinleh in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa xidhiidhka saxaafadda iyo warbaahinta gobolka awdal ee xisbiga kulmiye maxamed siciid aadan in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa arrimaha bulshada ee gobolka awdal ee xisbiga cabdirasaaq axmed ibraahim doob in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa siyaasadda iyo nabadgelyada xisbiga kulmiye ee gobolka awdal axmed xasan aadan in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga kulmiye ee gobolka awdal cabdiraxmaan maxamed rooble in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado madaxa dhaqaalaha xisbiga kulmiye ee gobolka awdal cabdisalaan dayib cilmi in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado ku-xigeenka madaxa arrimaha bulshada gobolka awdal ee xisbiga kulmiye axmed xuseen shaqale in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado ku-xigeenka madaxa xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal cabdiqaadir faarax xasan in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado ku-xigeenka madaxa xidhiidhka komishanka iyo doorashooyinka xisbiga kulmiye ee gobolka awdal gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga waxa uu ku yidhi warmurtiyeedkan waxaan idiin rajaynayaa in mas-uuliyadda aan idiin magacaabay uu alla idinku asturo oo aad ku guulaysataan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilka heer gobol ee laydiin magacaabay